salaadiin aan la xiriirin ma jirto kuwa la soo xiriiray ma jiraan igoori waxaan ku qabanaynaa gogol oo nolol sheegay ma jirto wax allaale wax ka jira ma jiraan warka aad sheegtay maanta waa been weeye maalintii horaan kuu sheegay waadna diiday cidda aad la tashataana waa cidda dadka laynaysa wey waxaan ku leeyahay ciidamadaada ka saar dadkanina kama duwanaa dadkii aad hargeysa ku leynaysay ku xasuuqaysay raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id run ahaantii aniga hadalkaygu ma badna laakiin marka wax soo kordhaan oo wax runtii aan jirin soo kordhaan ama marka ay wax dhacaan ama marka provocation la sameeyo war aan jirin la sameeyo waajib bay nagu tahay inaan hadallo maanta waxaanu dhegaysanaynay war ka soo baxay Muuse Biixi oo uu isugu yeedhay dad fara badan oo dhowr boqol oo qof warka aniga inta iga qusaysa ama deegaanka aan garaadka wahay inta ka qusaysay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama bulshadan inta ka qusaysa ayaan anigu ka hadlaya Muuse wuxuu yidhi odayaasha salaadiinta ee imaanaya salaadiintii bay la xidhiidheen oo waxa weeye iyaga u yeedhay oo aniguna waan amba bixinaya arrinkaas wax ka jira ma jiraan annaga cidna la soo xidhiidhayna ma jirto cid aanu yeedhnayna ma jirto cid waxa weeye aanu niri kaalayana ma jirto waa qodobka kale wuxuu yidhi iyagoori baa la isla qaatay gogosha in waxa weeye la dhigo oo dhowr boqol qof qaadaya arrinkaasna wax ka jira ma jiraan muuse waxaan leeyahay muusow waxaa cad in wixii dalka ka dhacay ee dhibaatee hore ee dadka lagu leyn jiray iyo waxaan hadda dhacaya ee madaafiicda ee dadka lagu leynaya inaad siyaryeelayso oo waxa weeye aad ismaahinayso iyo in waxa weeye dadka kula soo hadlaya ee meesha kuu joogay aad sheegaysa ee hebel iyo hebel ah inay war khaldan kuu keenaan labadaasaanu kala garan waayey waxaase ii soo baxday oo intaaba waxa weeye isku liqday oo aan runtii caddaynaya xildhibaan Axmed Khaliif wuxuu yidhi markuu hadlayay maalin shanaad madaxweynuhu waa beentii buu yidhi runtii arrinkaa maanta aniga ii caddaatay madaxweyne tii Axmed Khaliif baan anagu qaadanayna wax allaale wax ka jira ma jiraan warka aad sheegtay maanta waa been weeye ciddii kuu keentana adigu isweydii annagu cidna la soo xidhiidhayna ma jirto cid waxa weeye noo imaanaysaa oo hadda waxa weeye aanu nidhi kaalayana ma jirto gogol aanu iyagoori dhignay oo waxa weeye lagu shirayaana ma jirto adigu bal arrinkaada adduunka u sheegtay bal adigu isweydii waxaa kaloo cajiib ah wuxuu yidhi dadka waa u turaynaa wax allaay wax tura oo laascaanood ka yaalla oo loogu turay laascaanood ma jirto guryihii gubtay ee dadkii lagu laayay intaba waa la hayaa xasuuqii laascaanood ka dhacay wixii ka dhacay waa la hayaa madaafiicdii lagu soo ridayay waa la hayaa dagaalkii ka dhacay waa la hayaa waxaan u maleynayaa muusow waxba kuuma harsana dadka shacabka ee waqooyiga degan iyagu waxba isuma qabaan salaadiintana waan garanayaa dad wanaagsan weeye laakiin adiga iyo rejiimkaagu waxaad go'aan ku gaadheen ama 88kii wixii Soomaali oo dhami u dhamayd waxa weeye dad kaga argudanayso laascaanoodna diyaar baanu nahay haddii aad adigu sidaada u doonayso dadka inaad laysana diyaar baanu nahay laakiin waxaanu kuu sheegaynaa waxaad magaalada ugu tudhay iyo waxaad ula hadhay midina ma jirto taangiyadii baa ugu dambeeyay kuwa halkaa maraya madaafiic nooc walba waad keentay nooc walba waa lagu garaacaya international community-guna waa arkaa ummadda islaamkuna way aragtaa ummadda Soomaaliyeedna way aragtaa ummadda reer waqooyiga ahina way aragtaa ummadda waxa weeye wada dhashay ee isku dayaankuna way aragtaa wixii halka aad ka samaynayso waa wax adiga gaar ku ah wana wax taariikhdu ay qori doonto waa run Hargeysa iyo Burco dadkii waxa weeye dagaal baa ka dhacay waa la bamgareeyay waa run wey dawladdii baana waxa weeye markaa joogtay Maxamed Siyaad baa mas'uuliyadda iyadoo ay lahayd laakiin haddii aad leedahay waxaan kaga argoosanaya iyadoo cid walba ku jirtay laascaanood baan Soomaali kaga argoosanaya dad qaadi kara waana
dad Soomaali loo laayana waa nahay taariikhduna way isqoraysaa international community-ga iyo waxa weeye heegna waxa weeye way joogtaa nin waliba wuxuu geystay waa la ogyahay anigu halkan waa in badan baan kaala hadla dhag bad jaliq iisiin weyn in badan baan kula talinay annagoo dhaqanka ah oo waliba kuwa aad soo diraysa ah oo intaad wax noo dirto oo aad tiraahdo waxaasi waxa weeye soo qabta oo mandate na siisa hadhowna mandate ka noqon jirtay oo inta anigu idima dirin annaga kaliya dhaqan ahaan ma ahayn cid waliba way ku garanaysaa kuwa hadda aad soo diraysana mandate-ka aad soo siinayso anigu waan ogahay wixii waxa weeye haddayba dhacdo oo ay ku yiraahdaan ciidamada qaad inaadan yeelin anigu waan ogahay oo haddeerba waxa weeye aad marmarsiyo aad doonayso waxaan ku leeyahay haddii dalkan iyo dadkan aad ka doonayso wanaag haddii aad dalkan iyo dadkan ka doonayso wada noolaansho haddii dalkan iyo dadkan aad ka doonayso sidii ay isu ahaan jireen haddii dalkan iyo dadkan aad ka doonayso abtinimadii iyo xididnimadii iyo ehelnimadii haddii dalkan iyo dadkan aad innaba waxa weeye aad ka doonayso in dadkaasi ay taariikh iyo sharafteeda ku noolaan jireen ay sii socoto haddii aad dadkan ka doonayso siday ahaan jireen inay ahaadaan maalintii horaan kuu sheegay waadna diiday cidda aad la tashataana waa cidda dadka laynayso wey waxaan ku leeyahay ciidamadaada ka saar dadkani kala tegi maayaan dadka taariikh baa dhici doonta Soomaali wixii ay soo martay waxa weeye waxaan hadda socdaa ugu yar waxa weeye waa la heshiin doonaa waxaan ku leeyahay taariikhda meel adag baad ka gashay haddii aad ku sii soconaysana dee waxba lamaad hadhinay inta dambana dhammayso dadka wixii ilaahay wadkood galay baa ku dhimanaya dhibaataduna meel walba way taallaa iyo baroortu halkana way taallaa Hargeysana waa taallaa Burcana waa taallaa Cergaana waa dadkuna waa dad wada dhashay adigaana sidaa u galay dadkanina kama duwanaa dadkii aad Hargeysa ku leenaysay ku xasuuqaysay ee aad garanayso ee maalintii bannaan baxay unbay dadkana la mid yihiin wayna ka sii daran yihiinoo dadkuwan madaafiic baa lala dhacay marka muuse waxaan ku leeyahay maanta waad iska hadashay waxa weeye aad ku hadasheen aad ummadda isugu yeedhayna waxa kuu hooseeyaa ka ballaaran ee aad doonaysa inaad samayso waayo waxaad sheegtay wax jira maaha annaga ciidana lama soo hadlin salaadiin aan la xiriirinay ma jirto kuwa nala soo xiriiray ma jiraan igoori waxaan ku qabanaynaa ogogol oo naloo sheegay ma jirto midaan cid ka wada hadalay ma jirto bal adigu is weydii tii Axmed Khaliif xildhibaan Axmed Khaliif baa ku hortaala. Assalaamu calaykum.